waxayna siinayaa sir maanta aan hayo waxa weeyaan in laga takhaluso in la doonayay saddex arrimood baa taala diyaarad baa ka soo kacaysa imaaraadka inay qaadatay ahayd isaga diyaaradda imaaraadka ka soo kacaysay waxay ahayd inay isaga qaadato kadibna halkee geynaysaa sidii khaashaqshi loo dilay ninkii loo oran jiray sacuudiga ahaa in la googooyo ahayd kadibna meel loo diro waa number 1 number 2 waxaa laga shaqaynayay in laga saaro mataarka oo la geeyo haddii taahir geli weydo hoteelkaana wixii ku qabsanaya uu ku qabsado waa talabaad arrinta saddexaad waxay ahayd ninka la yidhaahdo cabdilaahi cabdi wuxuu rabay in uu sumeeyo wayna sheekaysanayeen dadka amarka soo siiyey iyo isagu marka waxay in la sumeeyo maanta saaka oo nila hadlayo maanta galabta aan nila hadlayo oo aan joogo maaragtay magaalada Minneapolis Minnesota inkuna aad joogtiin in badan geeska Afrika waxa weeyaan waxaan idin sheegayaa ninkii in uu ka takhaluso ahaa oo la yiraahdo Cabdilaahi Cabdi dawladda Djibouti way xidhay waxaana lagu xidhay waxyaalo kale laakiin waxa ugu culus ee lagu xidhay waxa weeyaan waa arinta Fahad wuxuu hayaa sir culus buu hayaa ninkii maanta wuxuu ku jiraa dhakhtarka la yiraahdo المستشفى السوداني دكتورك السودان لا يراهdo ay Djibouti ku leedahay dhakhtarkaas oo la keeno qofkii sii socday laga takhalusay dawladda Djibouti ee dilayso marka ninka wuxuu la yiraahdaa waa kanzi buu ahaa kayd istaraatiijiya oo asraarta aqalka madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar iyo Khadra Xayd ay hayaan ninka xajinaya buu ahaa dad badan uga takhalusay maanta sirta Fahad lagu dilay isaga haya yaa badbaadiyay marka Fahad wuxuu inii sheegay qaar kamida xukuumadda Djibouti baa badbaadiyay warcad waxaan ku hayaa in uu badbaadiyay ninka la yiraahdo Xasan Saciid waa ninka xukuma sirdoonka Djibouti asdaasta ninkaasi wuxuu markuu maqlay ninkii mukhaabaraadka ahaa ee dalka Soomaaliya ayaa ku xaniman mataarka Djibouti wuxuu yimid mataarkii wuxuu yaa haystaa waxa lagu yiri waxa haysta Cabdilaahi Cabdi ninka la booliska xukuma oo muxuu haystaa waxa loo sheegay wixii dadka loo sheego ah diyaaradda xun iyo waxan ba qaraabay waxan wuxuu hayaa warka ka soo baxay dawladda Turkiga oo dhahday diyaaradda oo dhammaan dadkii rakaabka sida waa inay ku soo noqoto wadanka Turkiga markaas wuxuu yiri waxaan hayaa warkan oo iga soo gaaray safaaradda Turkiga waxa muhiim ah wasiirka arrimaha dibadda wixii oo dhan waxa muhiim ah in ninkan la sii daayo arrintaasina waxa cirka ku shareeray wuxuu ahaa dawladda Soomaaliya oo gaarsiisay Djibouti Turkiga gaarsiisay amniga Fahad inay mas'uul ka yihiin Turkiga iyo Djibouti marka ninkii khadki waa ka baxay ma Cabdilaahi Cabdi laakiin Cabdilaahi Cabdi wuxuu hayaa sheekadii dhaxmartay inay imaaraadku imato inay qaadato in la sumeeyo sirooyaadkii la dhigay iyo in la dilo oo lagu dilo maaragtay hoteelada Djibouti ka mid ah intaas oo dhani waxay sirooyaadkii la dhigay number 1 number 2 number 3 APC baahid maxaa fashiliyay ninka mukhaabaraadka Djibouti xukuma oo Xasan Saciid la yiraahdo waxaa fashiliyay ninka la yiraahdo Xasan Madow loo yaqaan waxaa fashiliyay wasaaradda arrimaha dibadda oo yadna ay warkii Soomaaliya warkii Turkiga u yimaadeen waxaa fashiliyay oo kaleeto dawladda Soomaaliya oo kor u qaaday oo tiri ninka mas'uuliyadiisa waxa mas'uulka iyo ka okay marka arrimaha uu soo bandhigay waxa weeyaan Fahad wuxuu yahay maanta waa kayd sir oo laba lugood oo socda waa kayd istaraatiiji ah wuxuu hayaa khilaafkii Kenya iyo Soomaaliya intuu leeyahay halku ka bilaabmay ninka qura ee si sir u hayo weeyaan wuxuu hayaa khilaafkii Ethiopia halku ku dhamaaday maxaana isbedel ku dhacay wuxuu hayaa Eritrea ciyaalkii la geeyay halkii joogan wuxuu hayaa gudaha Soomaaliya maxaa ka socda kulluha gacantiisa ku jiraan marka muxuu yahay waa kayd istaraatiiji ah oo siyaasi ah oo amni ah macluumaadka uu hayana waa ta keentay in gurigiisa la weeraro limaada guriga loo weeraray maxaa guriga laga doonay qofka maxkamadda la taagi dara guriga ma la ilaaliyo ma askartu ku meersamaan ay raadaan markuu soo noqday loo yeero maxkamadda waxa la oran doonaa waxaan soo qaad macluumaadkii keen ma la yiraahdo limaada waxaas oo dhan wuxuu ku tusayaa khutuuradda uu leeyahay ninka kale iyo halista uu leeyahay ninka kale okay taana waa ka baxnay su'aashu waxaan marnaa tawqiidka
muxuu hadli waayey markii ay dawladda u dhex fadhiyay uu sheegay isagu laba shay buu sheegay aan waxaan ku daray laba shay oo kale muxuu hadli waayey waqtigu dawladda dhex fadhiyay uu sheegi waayey asraarta u hayo su'aashu waxa weeyaan ayuu u sheegay waqtiga aynu waxaan dhacayeen dawladdu way burburtayba dawladda Soomaaliya maamulkeedu uu burburay muxuu ku burburay wuxuu ku burburay qolo raacsan farmaajo iyo qolo raacsan Roble wuxuu ku burburay arinta ka khatarsan wuxuu ku burburay dawladda maartay cumqigeegi arkaanteedii way kala tageen way isku iman kari waayeen majliska amniga qowmiga ee dawladdu uu shiri kari waayeen halkuu warka ku sheegi karaa lama ay meel war ku sheego marka warka inuu sheego isagu wuxuu dhaanu saxaafadna ma siinaya maxkamadda ma siinaya warka waxaan siinayaa meel warka la siiyaa jirta amni qowmiga madaxweynaha xukuma ra'iisul wasaaraha ka soo qayb gala wadanada qaar laakiin ma garan karo Soomaaliya wuxuu uga qayb galo madaxweynuhu hadduu kul joogo waa inay joogaan ciidamadu waa inay joogaan wasaaradda dibadda wasaaradda gudaha iyo waa inay joogaan maaragtay dadka saas la mid ah laakiin dawladdu waa dawlad ri'aasiya madaxweynaha warka la siiyaa madaxweyne ku xigeenka xataa soo maaragtay lama siiyo marka qaarkood marka taasi waa muhiim jiddan waxa la siiyo waa tawayaan arinta kale wuxuu yidhi marka arinta waqtiga u sheegi waayey muxuu dib ugu dhigi waayey waa waxa dhacaya waa inuu degdeg u sheego sabqi zamaniga waa inuu ilaaliyo waqtiga waa inuu ilaaliyo waqtiga waa muhiim okay dadka qaar waxay leeyihiin ma waxaa jira dagaal la doonayo in xasan sheekh oo madaxweynaha waddanka ah in hoos loo dhigo xafladihiisii oo dadka lagu mashquuliyo dhismaha guriga madaxweynaha iyo arintani ninkan maxaa dhahdaa Fahad warka uu keenay oo ay suuqa qabsadaan ma taasa haddaan u fikirno sida muraahaqada ya dadka loo yaqaan maratay adolescence-ka ee yaryar haddaan u fikirno taasaan qaadanayna laakiin haddaan u fikirno sidii nin siyaasi ah waxa weeyaan taas maaha waxa weeyaan waxa meesha keenay in uu waqtigan hadlo waa arin amni ah waa security-giisa siyaasiga ayuu ilaalinayay amnigiisu ilaalinaya noloshiisu ilaalinaya sumcadiisu ilaalinaya intaas oo dhan buu dhowrayaa okay intaas waa ka baxay su'aal khataran ka hadlaya marka aad u fiirsatid hadalkiisii ninkan maxaa run aha maxaa been aha maxaa xaqiiqo aha maxaan xaqiiqo ahayn saddex qaacidaan isilaya alqaacidada koowaad wax weeyaan anigu muhiim ma aha inuu been sheegay iyo inuu run sheegay macna ay sheegaysa ma jiraan daliil baan sugayaa wuxuu yiri daliil baan ka doonayaa waxa laga yiri daliil baan ka doonayaa daliilka ay xukuma daliilku ma aha gabadhu niista ka shaqeynayso niista dishay raxmatullaahi calayha ma aha daliil waxaasi daliilku ma aha waxa weeyaan waxa dilay ma salaad daliil ma aha waxaasi ra'iisul wasaaraha dilay daliil ma aha waa hadalkuna waa hadal macna ma leh la budda min daliil wa inuu marag yeesho marag ma hayna ilaa imika yaa dilay marag ma hayno marka hadalkiisu muhiim wuxuu ku noqonayaa markuu aragti keeno labo waxa kale oo muhiim ah aniga agteeda waxa muhiim ah qofka hadlaya intuu leeyahay muhiim ma aha muhiim laakiin waxa muhiim ah wuxuu ka hadlayaa saddex aniga muhiim ma aha qofku waa mucaarad shacabkan u tabi iyo waa muxaafado shacabka ma tubayo aniga waxba ma sheegayso shacabkaagu waxba ma sheegayso amba tun amba hatumin ila jir amba iga jir agteeda waa ibr saawiya zero macna ay leedahay ma jiro waxba ma korinayso waxaan iga naaqusaysid laakiin aniga waxa waxay taraya maxay waxa waxay taraya xaqiiqadii la gaaro sidaa daraadeed marka aan hadalkiisa u fiirsado saddex arimood baan kala soo baxay kow nin kalsooni isku qabaa quwwa fi shakhsiyya xoog labo waa dhakii positive-ki nin waxa uu ka hadlayo sida uga hadlaya garanaya bartay sida dadka loo qanciyo macluumaadka sida ugu fudud u gaarsiinaya saddex waxa iga soo baxay inuu garanayo dadka is hayaan yihiin dadka is hayaan waayo manigi sheegay guduhu waa saddex waxay is hayaan madax mucaarada waxay is hayaan madax imika dawladda qabatay waxay is hayaan dad u naca muxuu u najaxay oo u guuleystay isagoo wadaada labo waxay is hayaan dawlado Kenya iyo waxay is hayaan dawlado jaara Djibouti waxay is hayaan dawlado caalami ah oo ay ka mid tahay imaaraadka Sacuudiga iyo Masar bas hayaan marka ninkani dadkaas oo dhan way hayaan uu garanaya dadku la hadlayo iyo isaga ay sayn dad badan oo shicibka Soomaaliya isma hayaan
ويترصدان لبو اسمها يان إريتريا إثيوبيا اسمها يان قطر تركيا اسمها يان dadka waa isku xulufo isku meel yihiin marka uu garanaya risaaladiisa ayuu diraya ayuuna ka hadlaya ayuuna la hadlaya uu garanaya okay taan waa fahnay okay waxa weeyaan hadaba arinta halista waxa weeyaan shakhsiyadiisu waa taas dhinaca wanaaga dhinaca kaleeto shakhsiyadiisu waa maxay waxaan anu aad ugu horjeestay markuu yiri dawladda waxa ugu labarwan ah ee ugu fiican waa maxay ومجلس ومخابراتك لا دولة مخابرات كيغو وكبر على الدولة لماذا ولا قاعد صودا دولة وحا ugu muhiimsan waa maxay waa xuquuqda bini aadamka waa xurriyada waa cadaaladda waa educationka waa caafimaadka waa dhismaha dawladdu waxay leedahay afar awoodood waxay leedahay awoodda ilaalinta awoodda difaaca awoodda kobcinta awoodda ilaalinta awoodda kobcinta iyo waxa marka leedahay awoodda difaaca ximaayada amnigu waa ximaaya wadanku ilaaliya laakiin waxa ka horeeya kuwa kale oo dhan ba ka horeeya awoodaha kale ka horeeya marka taasi waan ka naxay markuu yiri isha dawladdu waa mukhaabaraad arinta labaad aan ku diiday waxa kamid ahaa in uu ma aragtay dadka is hayaan run ahaan weerar la xal ay ku qaadeen marka intaas waa intaas maxaa ku tusiyay inuu marka qaar kood marka aad luqadda jasadka jirka eegtid marka qaar kood waxay dhadaan culimadu markuu qofku cirka eego haduu hadlayo waxa ku jira afar admood fikrad uu ogeyn oo ku soo biirto inuu fikro u baahan tahay waa labo malal inuu ka daalay su'aalahan ama waxa la weydiinayo saddex inuu ixbaad qaaday oo qoostay ugu dambeyn maxay in uu cariisan yahay culimada jirka ka sheekeeya luqadoo dhan inta waxaan aad ula yaabay gacmihiisu meel kale ma aadeen qaar baa soo qaaday inuu sidan lahaa dad badan baa saa idhaahda ragga fikiroo dhan qaar baa saa idhaahda qaar baa sidaa idhaahda qaar baa sidan idhaahda qaar baa sidaa idhaahda qaar baa sidaa idhaahda intaas oo dhan waa caalam lagu fikiro maaha wax dhibaato ah laakiin ta dhibaatadii waa tan weeyaan inuu cirka eegay limaada why afartan mid uu ahaa marka isaga ku maqan tahay inuu ka jawaabo marka ikhwaani fillah waxa weeyaan wuxuu ka hadlay waxay ahayd arrimo halis ah oo amniga dalka taabanaya waxaana kala soo baxnay inuu yahay nin halis ah oo akhristiisu aynan caadi ahayn waxaan aad ula yaabay oo inaan ka baxan jeclahay waxa lagu yiri marka aad hawsha ka baxdid maxad qabataa aad baan ula yaabay wuxuu yiri waxa lagu yiri sinimo wali ma gashay sinimo meeybuuli ma ciyaartaa baa lagu yiri sport meeybuuli waxa lagu yiri maxad qabataa anu wuxuu yiri waxaan ahay qof jiddi ah waxaan akhriyaa bas marka waqti helo waxaan akhriyaa aad baan ugu farxay inuu akhriyo wuxuu yiri taariikhdan akhriyaa aad baan ugu farxay taas laakiin ma jeclaysan inuu yiraahdo waan dursanahay ma jeclaysan hargabay haya ma jeclaysan inuu yiraahdo shinimo wali ma gelin dad baa haysta Soomaalida xitaa wadaad qaarkood inuu shinimogu xaraan yahay la shinimoga marta reegalbeed la joogo shinimoga waa la galaa limaada waxa jira shinimo arshiif taariikh ka waramaya jira filin ka waramaya ciyaaro filin taariikh filin sport filin maaratay wax badan bay filmanta ka waramaan filmanta wada xumaan ma aha number 1 waliba khastan isaga waa inuu filmanta daawado qalb filmanta booliska waa inuu daawado arinta kale ee yaabka badan wuxuu sport ma ciyaaro waa inuu qofku gym uu tago oo sport ciyaaro isagoo kale waa muhiim waa inuu didido marka taasina waa yani faraaqa badan arintaasi waa is weydiiyay marka anu saasanahay waana run way ka muuqataa inuu sidaa yahay waxaan dhageystay nin raado doctor Imadin Khalil oo mufakir Iraaqiya xafidahullah waxa lagu yiri wali film ma gashay wuxuu nolosha mar baa galay sport ma ciyaartaa ma ciyaaro maxaa sameeyay waan yar loogayaa buu markan miskiidka tagaya ka soo loogaa laakiin maxaa nolosha sameeyay waxbaan akhriyaa waxbaan qoraa dadka caynkaasina way jiraan waana dad naajixiina marka jidiyadu nolosha ka mid tahay intaas ka bixi laha intaan dib u kulmi doono mar kale taariikhda nolosheena insha Allah sidii caadigeena ahayd waxaan naga tagayaa sida ay nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.